وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبه نستعين وديا ودين وولالكين عبد الكريم محمد علي وبرامج كيني أسبوع لها أما تضبط لها أنمان والبا يدين كسو قد بنجرني حنون يداوديسا ما أنت وحن كهل دونا إسلا حنونا دي تحنا إنوها متكمدة وحن ما أنت سوق هذا إن حنون كله يغانو كعدي بحثك ورنتي برشدنا أنت بدن قيبة كميدة أكو أركيسيد أما مرول بقى يكولا إيمانيان هدية أو فيديو شوكتيد يا هدية برشدة لح شوكتيد بقى أكو أركيسيد مركب حربة ما أنت الوشي إن شاسد شيء أو يعني داود يسمر كلاجته إن وحير أنا سكر واحد يسندل استعمله وحيابها صوابا يا وحيابها كينا أيش أكو بدنيا هاي حنو وحن وحالة يعني قفكو رنتي وسن كنترول كرين كادي هيستيسا أما قيبتن كاديدا lagu soo shubay marka ugu dambaysa laga soo qaado tuubooyinka dibadda uga saaraan ama kaliyaha kaliyaha marka excretion ay soo sameeyaan tuubooyin baa ka soo qaada kaadi haystay keenan din tuubooyin ka soo qaado dibadda u soo saara marka kaadi haysta meesha dhibka uu ka jiro muxuu yahay waa kaadi haysta marka kaadi haysta markan ka hadlano waxaa ku dhaca infection kaasi inta badan waa wax la daaweyn karo laakiin qofku hadii uu isku eegto oo waqti badan xanuunkan waayo yani waqti ku qaadanaysa qofkan inuu daawada uu isticmaalayo inay yani natiijo sax ah inuu ka arko marka calaamadaha inta badan waxyaabaha badan sababo oo kale waxa sababi kara dadka inta badan access ka sameeya waxa kale oo lagu arkaa ama runtii ka soo muuqanaya dadka isticmaala alcoholka dadka isticmaala waxyaabaha basbaaska ama waxyaabaha kulul iyo waxyaabaha isticmaala sidoo kale waxa lagu arkaa dadka isticmaala wax loo dhahay sheeg caloosha ay taagan tahay ama constipation ka qaba soo marka calaamadaha inta badan lagu arkaa marka age-ka uu ku badan yahay waxa weeye wuxuu u badan yahay dadka waaweyn laakiin dadka yaryarna waa lagu arkaa marka waxa idin kula talinaya shakhsi ahaan mar walba ama mar kasta infection haduu kaaga dhaco qaybta UTI-ga ina daawo ka qaadatid ama iska daaweysid waa wax iska fudud oo simple laakiin dadka hadii uu waqti badan hayo qofka kaadidu mar walba ay frequency fara badan uu sameeyo oo suuliga ku noqdo maybe inuu adkaato hadhow qofkii inuu daawadiisi in la gaaro marka maanta waxa idin soo qaaday saddex daawo waa saddex daawo runtii ma sha Allah aad u fiican oo runtii xanuunkan loo qaato lagu daaweeyo ilaahayna dad badan ku caafiyay daawadu u horeysa waa daawadan markaan ka hadlayno waa very perfect waa sharoobadan markaan ka hadlayno waxay aad ugu fiican tahay dadka kaadi baxsad kale ee waayeelka iyo dadka yaryar ee ciyaalka labadaba marka aan labadaas aan sheegayno ama aan labada ka hadlayno waxay aad kale ugu fiican tahay daawadan hadii uu jiro ama inta badan dadka waayeelka waxa lagu arkaa wax la dhaho inay yeeshaan dad waxa jira infection inuu meesha ka jiro really infectionka waa daawooyinka ugu fiican ee loo qaato waa daawooyinka ugu fiican ee kaadi baxsadka waa daawada ugu fiican ee hadii xitaa dhagax uu ku jiro kaliya ama qaybtan kaadi mareenka way ka soo saaraysaa adiga aan qalin marin waxa ku xigta daawadan ama wax la yiraahdo
caleen waa meeshan waxay ka muuqanaya kartoonka yar waa caleentaasi waxay kaa caawinaysaa haddii ay jirto ama uu qofkii hayo kaadi baxsadka biidnillah way kaa joojinaysaa sidoo kale waxay u fiican tahay haddii uu jiro wax la yiraahdo infection haddii uu jiro qaybta tan waxa la dhaho qaybtan kaadi mareenka waxaa jira inta badan qof waxaa jira aan is ogeyn oo kaadidu mar walba ay si directly iskaga socoto mar walba ay soo gasho kaadi mareenka toos ay soo baxayso marka qofka sensiga inta badan oo yani nerveska sabala gareynay meeshaas oo dareenka siinayay ayaa yaraaday marka qofkana taas ay waxay u sameynaysaa repairing oo qofka dib ayuu insha Allah u dareemi doonaa in kaadu ay yani ka sii baxayso u ceshan doonaa insha Allah waxa ku xiga kaniinkan markaan ka hadlayno wuxuu u fiican yahay dadka kaadi baxsad kale oo aan is ogeyn iyaguna oo yani qof waxa inta badan si dawada hore ka soo hadlay yani dad waxa jira aan ogeyn kaadu iska socoto aan control lahayn marka qofkaas oo kale waxa la siiyaa daawadan oo runtii dad badan Ilaahay ku caafiyay marka qofka waxay kaloo u sameynaysaa wax la yiraahdo hadii infection hadii uu jiro maskaxda oo kale yani xasuusta ayuu soo celiyaa kaniinkan xasuusta qofka Ilaahay baa soo celin kara Ilaahay Rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa dadka xanuunsan dhamaantood in Ilaahay caafiyo laakiin يعني حسوسته مسكحده قفكا inuu memorization uu sameeyo maskaxda wax ku lagu kaydiyo iyo inuu wax xasuusto iyo inuu dareen leeyahay intaba uga qayb qaadataa waayo qofka hadii uu yani xasuusto hadii uu mar walba uu dareemayo wax inay ka socdo ay kaadiyiin yani wuxuu sameeynaya wax la yiraahdo obstruction ayuu sameeynaya oo muscleski ayaa u shaqeynaya oo maxay sameynayaan inay meeshii ay obstruction ku sameeyaan qaybtii kaadi haysta marka insha Allah intaas aan ku soo gabagabeynaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا وجعا أجر